waad la socotaan dhaqdhaqaaq badan iyo shaqo badan oo dalka ka socota waqtigu wuu kooban yahay waqtiga la wada joogaani intii waxaad ogaataan marka qofka kulankan oo ujeedkiisa dowladda iyo xukuumadda federaalka ah ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare xasan cali in dadku ay sii koobmaan mar kasta oo waqtigu sii guraba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كنت waxaan rabaa inaan qodobadayda qaybsado saddex nuqaad ka hadlaya haddii aan yiraahdo marka hore ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada horta waxaan leenahay soo dhawaada dadka halkaan fadhiya markii maxamed farmaajara way bannaan baxeen oo way soo dhaweeyeen markii ra'iisul wasaare khayr la magacaabayna dadkii ugu horreeyey oo runtii taageerayahay taageerada khayreemada bilaabatay maaha dadka halka fadhiya horey u taageereen laakiin waxaan dareemaynaa in la dhex istaagay oo dallaalin ay dhex istaageen isagana waxaan rajaynaynaa inuu aad u dareemo waxa weeye dadka aad ra'iisul wasaaraha u tahay xildhibaano iyo senataro keliya maaha wasiiradaada keliyana maaha waxaa jooga intaasoo kala duwan oo qaybaha bulshada leh iyo siyaasiyiin waddankan ka soo shaqaysay markii uu dhibka badan lahaa hadda waxaad dareemaysaa inaad meel walba iyadoo laamiya la marayo laakiin asoo dhib badanaa laga soo shaqeeyey marka ra'iisul wasaare soo dhawow dadka halkaan joogaa waa ku taageersan yihiin horena way ku taageereen haddii lagu yiri kuma taageersanana waa been keliya waxa weeye dalaala idin dhex galay dalaalka idin dhex galay ayaad u baahan tahay inaad ka xorowdo waxaan kaloo rabaa inaan ra'iisul wasaaraha dardaaraya aan siiyo wixii haddeer ka dambeeya waxaan u hadlayaa marna shacabku waxay dareemayaan ka hadlayaa marna tala siyaasadeed oo adigana ku anfacaysa dowladdaadana anfacaysa ku siinaya intaanan shacabku u gudbin meeshaan dowladaha iska soo bedelay maanta adaa ra'iisul wasaare ah dowlad xanuun badan oo dadka xanuujisay isbeddelkii laga sameeyaadna ku timid haddii aad ku timid madaxweyne farmaajo iyo adigoo khayre aad ku timaadeen waxaan sugaynay waxay ahayd xanuunkii dadka haayay inaad ka qaadaan waxaan dareemaynaa weli in xanuunkii jiro xanuunkaas waxaa ka mid ah waxaa yaalla isbaarooyin magaalada gudaheeda isbaarooyinkaa kala duwan qaarna waa isbaaro qalin iyo maamul waa isticmaalay waxaa ka mid ah midda halkaa labada tallaabo kuu jirta hadda markaa halka ka baxday sii martaan jecla haddii ilaahay yidhaahdo oo gaartay qof dhoofaya in la dilo
oo la yiraahdo halka soo marin ayaa dhoofi maysid warwaa dhoofiyaa bash badan lagu sii waxaa taalla oo magac iyo sumcad iyo wanaag ku ah dadkaan xanuun ka fujinaysa isbaarada taalla waddada isku xidhaysa magaaladan oo dhan oo maanta ay baabuurtii shacabku watay iyo tii dadweynuhu raacayaba isku dilayaan oo ciriiri iyo isku dhac kula haysto waddadaa yartaaba haddii ilaahay ku roog yahay loogu talagalay xaafadda inay adeegsato ee taleex waddadii dhammayd ee tarabuunka ee isku xidhaysay magaaladan ayaa waxay xiran tahay 6 sano 7 sano taasina shacabkan magaalada muqdisho ma qabo iyadoo waxaan kaa rajaynayaa hadda markaad baxdo inaad sii marto wax walba ay u xirantahay inaad halka u hesho haddii ilaahay taas markaan ka soo gudbo mudane ra-iisul wasaare dadkan magaalada muqdisho jooga way ku taageersan yihiin harana way ku taageereen haddana way ku taageerayaan midna ogow dadka halkan fadhiya ee magaca ku fadhiya 2 jeer madax u tahay waxba yaan lagu sheegin waxba yaan lagaaga dalaalay mar dhalashada madax u tahay oo curadkoodii aad tahay marna ra-iisul wasaare waxaa weeye waxa kale oo aan anaga shacab ahaan aniga siyaasi aan ahay laakiin shacabkaan u hadlayaa markaan haddana shacabku waxaa weeye waxay u baahan yihiin rag badan oo halkan fadhiya ilmahoodii laamiga ku daateen iyadoo ay sababayso aqoon darro dawladeed sababtaan saa u leeyahay waxaa weeye in dad badan fahmina laga yaaba waxaa dhacaysa in dabajeex lagu eriyanayo oonto bajaaj oo laga qaadayo $1 oo gabar saaran xabad inta laga dhulkido ilmaheeda qaataan bal haddaad timaadeen waa inaysan soo noqon waa inaan bajaaj qoray lagu eriyan waa in systematic looga qaada lacag taas waa taas iyadana dadkan Soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan cid dawlad ka jecel ma leh anoo dawlad dhexaana waa ka soo shaqeeyey anoo gobolka banaadir ahna waa u soo shaqeeyey waxa weeye waa dad madaxdooda taageera soona dhoweeya haddii ilaahay kuu rooyaa dawladnimadana ku nool intaa markaan ka soo gudbo mudane ra-iisul wasaare waxaan rabnaa inaad ka dhabayso halhayskaagii ahaa 2 qodob ee kala bedelan qodobka koowaad waxa weeye golaha wasiirada waxaa tiri aniga iska bilaabayna waxa la yiraahdo xisaabtan waa run waa soo dhaweynay waana ku mahadsan tahay sida hadda aad wax u wadana waa kugu raacsannahay laakiin waxaan u baahannahay gacmo idinka madax bannaan inay xisaabtankaas ay xisaabiyaan oo ay faylgareeyaan oo beri ka maalin ayagu ay soo saaraan u baahannahay guddi in loo sameeyo oo arrinkaada dowladeyihiin taa markaan ka soo gudbo midda kale waxaa weeye waxaad halaysku ah eray wanaagsan oo runtii aan la dhacsanahay shacabka Soomaaliyeed la dhacsan yahay eraygaas waxaa weeye dadka Soomaaliyeed ay la xisaabtamo mudane ra-iisul wasaare waxaa lagaa rabaa waa sax eray saxa weeye laakiin xaggee lagugu xisaabtamaya madaxtooye salkeedaad fadhiisatay waa lagaa sokeeyaa shacabka Soomaaliyeed kuma arki karo usii socdo oon gelaayo waxaan arkaa dad mudan inay ku arkaan oo mudan rag haween leh oon ku arki karin wasaaradii waxaa lagu dhegelayaa ID cardkeen badan ra-iisul wasaare midda la rabo in la bedelo ayadana wasaarad waxay u furan tahay dadka Soomaaliyeed u furan mar haddii dadka Soomaaliyeed u furan tahay shacabkay ku shaqaysaa markii laga reebo wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda relation waxay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed haddii la yiraahdo markaan wasaaradda ganacsiga tago ID card keenso ima qabato anoo qof Soomaaliya ah oo mudan inaan shaqo u doonto oo mudan inaan arrimaha ganacsiga kala hadlo oo mudan inaan wax weydiiyo ima qabato mudane ra-iisul wasaare waa taageersanahay waa kula dhacsanahay keliya waxaan kaa rabnaa waxa weeye xafiiskaagana inaan heli karno dadka dalaaliinta dhalinyaradaada inta haddii la magacyada u dhiiba oranaya hebel iyo ra-iisul wasaare ha u imaanin
haddii uu yimaadana isoo sheeg arrimaada aan u geeyo ama ha u gudbinin oranaya waa inaad tallaabo aan garan karo inaad ka qaado inaan ka mid ahay dadka dhalinyaradu ay hayso oo la yiri raiisul wasaaraha yuu tegay weligay tegay kumana soo raadin laakiin waxaan kuu sheegaya haddaan ku soo raadinaya yaan waayi dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda waxaa ka mid ah marka qaar laysu tuureeyo arki karo oo aan ka tegin aad baad mahadsantahay salaamu calaykum warahmatullahi waa maalin karaamo leh waa maalin aan la kala maqnayn waxaan soo dhawaynaynaa oo dhammaan intayadaas maanta halkaa isugu timid ra-iisul wasaaraha iyaga aan jecelnahay iyo xukuumaddiisa cali khayri waxaan leenahay waxaan kaloo soo dhawaynaynaa madaxweynaha galmudug waxaan soo dhawaynaynaa wasiirada oo ugu leeyahay wasiirka warfaafintu waxaan soo dhawaynaynaa cuqaasha odayaasha dhalinyarada haweenka lafdabarka ah gudoomiyaha gobolka banaadir taabadtood iyo raadahow kusoo dhawaada wadannimo kusoo dhawaada ra-iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaada garabkaadinaan taagana xafla 11 xafladood lagu taageerayo maanta aya 11 maanta aya intaasna codkaasaa wadaanu inta labadana codkaasay weyday maanta raggii hada aaway shiiqi oo hada iga hormaray maanta wuxuu sheegay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkaa inta fadhida oo lagu sheegay macnahooda adigoo ah ra-iisul wasaarihi ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa taageerada ay kuu fidiyeen iyo wanaagtinimada ay kuu fidiyeen iyo dadnimada ay kuu fidiyeen iyo kursiga aad ku fadhido oo intaasay in noqon oo wada hanqal taagayso waa diidinay in cid kale ku fadhiista ku soo dhawow waa kugu ilaalinaynaa waa kuu soo jeedaynaa waa kula dhafraynaa laakiin baa meesha ku jirta haddaan 11 taageero bixinay haddaan ku caleemo saarnay haddaan laba qayb kugu xambaarsanay waxaa la rabaa inaan ka soo baxdin inaad kaalinta halkaa dhigtid inaad wanaag iyo sharafka xaqaadka halkaa dhigtid waxaa kuu haray afmishaar dhuxdhuxde socon wuxuu doonay baxsidke ma rabno mana doonayno waxba kaa qaadi mahaya iskidiro iska fogee dulmiirow iska fogee cadaalad iyo sinaan iyo midnibaa ku dhawaaqda waxyaabaha aan kugu taageerayno adoo 3 bilood jirsaday oo habeenna kuu dheer yihiin waxaa ka mid ah la xisaabtankaaga socodkaaga soo jeedkaaga intaas baa hadda ugu weyn intaan kugu taageerno hal sano markaa gaartid hal sano ka hor maba kula hadlayno annagu hal sano ka hor kula hadlayno war ma la qabtaan inaan ra-iisul wasaare hal sano nala hadlin war ma taageerna ra-iisul wasaaraha yaanu noqota dhalheli waxaan rabnaa marka waxaan usoo gaardaynayaa rag waa naga ola badan yahay ra-iisul wasaare waa naga dheerayaa annagu gabdhaan nahay waa xishoonnaa dowlad kasta waa taageernaa dowlad aan dhulka dhignaa ma jirto ilaa kasxal mahdi ilaa cabdinaasim ilaa sheekh shariif ilaa yoom alxaada ilaa maydka xasan sheekh saasaan mikrofon ula taagnaa oo sidata jirnaa oo marna heesaynaa marna gabyaynaa waxa weeye bahash meesha iska qaban laada ilaahayaan waalaanahay maanta dalkii anigaa xukuma iyo farmaajo wax daliil oo hal sano naga helaysaan ma jirto waa igala shaqaynaynaa waa soo dhawaynaynaa wala afarta naga daaya afar weeye afar caadkiisa ma jirto
waxaan kaloo leenahay nooroonahayno dalka bisow dalka horumarkiiso baadihii bulshada saacad weye baadihii bulshada saacad weye kicil qabe inta dooni rabe ciidaha gale kicil qabe inta dooni rabe ciidaha gale amnigiisiyo وسعد سمعنا طالع maadaama aan ahay duqii magaalada ra-iisul wasaare anigana boqolkiiba boqol ku taageersan marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa walaalkay madaxweynaha galmudug ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada xildhibaanada odayaasha oqaasha kulli waa mahadsantihiin aad iyo aad baan u faraxsana meeshan maanta in lagu soo dhaweeyo waan ka soo qayb gala shirkan oo aan weli xamar intii lay doortay shir ma dhigin waan ka baqay oo xoogaa culayska ay u bateen halleeyahay marka ugu horeysa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkii shirkaan soo abaaburay annagu daraan tii ka horreysayba kan oo mini ahaa sameeyey waxaan u marinayaa salaadiintii odayaasha qaarkood oo kuwii sameeyey maalinta jumcadii kuwo kalena waxay sameeyeen khamiista laakiin isagoo yaryar buu ahaa ee sidaanoo kale ma ahayn waxaan filayaa kanaa dhalay kii hore calaa kulli xaal dowladdu waa urdan wixii urdanna waa la koriyaa ee loo jilaafeeyo aad iyo aad waxaan maaragtay ugu hambalyeynayaa dadkii arrintan soo abaabulay oo ka shaqeeyey maanta aan isku ogaano horta bal inaan wadanayaha la daayo dhibaata waxay dhacday maba la istahilhayay 2 bilood ma wada isku sifaxay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda kenya soo qancaysay hataa raggii meesha tegay in badan oo kamida soo socda wariya dhammaanteed dowladda cusub hala daayo dowladda aduguna noo jijida annaga galmudug baana na soo dhowey na kori wax kaloo sheegayaa ma jirto odayaasha iyo sanatarada iyo ragga meesha fadhiya hawsha adkeeya oo si fiican u shaqeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulligood dad madaxa gabdhaha ragga wax kasta anagu goos xasan marka haddaan magacyo imaado dadkii aan ka tago hadha waxaa la leeyahay ugaaskii waa kaa tegay waxaa ku filan oodeedna kulli dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada walaalayaal waxaan u malaynayaa arrintan sharaf kale oo qiimaha leh intii soo abaabushay oo ka shaqeeyay xafladan in sidaa sharaf kale la isugu yimaado iyo intii ka soo qayb gashay oo sharafka iyo muuqaal kale hadda la muuqata ilaahay baa mahad iyo amaan iskale waa mahadsan yihin kulli dhammaantood waxaan rabaa inaan ku daro midaas haddii ilaahay yidhaahdo hana la gaagaabiyaa la yidhi waqtiyaa la joogaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaan rabaa iyo xukuumaddiisaba
soo dhaweynta lagu celceliyey waxaa aad iyo aad loo soo dhaweeyey markii la doorto midaan xafladan waxay maaragtay qiimaheedu yahay oo tilmaanteeda leedahay markaati furkii sidii loo adeecay markaati furkeedii waay saas inuu loogu soo dhaweeyey loogu talagalay dowladda federaalka ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo kulli dhammaantood waxaa looga baahan yaha oo laga codsanayaa inay maaragtay ummadda ay xilka u hayaan wax u qabtaan inay sida ugu dhaqsiyaa badan wax u qabtaan ra-iisul wasaare waxaan ku leeyahay waxaa lagaga baahan yahay waddankii colaadaha ka jira abaar baa ka jirta inaad ilaahay baa labadaba qaba kara inaad dadaal muujido inaad isu taagto inaad ka shaqaydo ayaa loo baahan yahay annaguna waana kugu duceeyaynaa haddii aan ama xildhibaanada leenahay dowladda federaalka ama silmada goboleedyada ku jira ama aan dadka ganacsatada leenahay ama aan dhaqanka leenahay ama hooyooyinka iyo dhalinyarada aan leenahay waxaan insha allahu rajaynaynaa inaan kala shaqayn doono waxaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo inaad isu taagto inaad colaada jirta iyadoon xabad lagu hadlin in wax dheef iyo cod lagu hadliyo inaad u istaagto codadkaagii hore inaad sii laadato waxaan rabaa dowlad goboleedka axmed maxaali xaaf waxaa madaxweyne mar haddii laga dhigay naanastii lama sheegi karo waxaan rabaa marka hawla u taala waxaan rabaa maanta inaan maaragtay idaacaddan aan ka faa'iidaysto waxaan u malaynayaa gobolka waa lagu doortay madaxweynihii maamul goboleedka gobollada dhexaad noqotay waxaa gudoomiyaha gobolka duqa muqdisho dhammaan nabadoonada odayaasha qaybaha kala duwan bulshada haweenka dhalinyarada bahda saxaafadda ciidanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan ra-iisul wasaare xafladan soo dhaweynta hadalkeeda la iskale waxaan u istaagay waxay tahay inaan kugu soo dhaweeyo iyo laba arrin keliya midna shacabka halka jooga waa shacabka caasimadda waa shacabka u istaagay midnimada iyo isku haynta ummadda soomaaliyeed shacabkan iyo odayaashooda waad og tahay dhibkay u soo mareen halgan dheer u soo galay duruufo kala duwan fowdo iyo dowlad la-aan iyo nidaam darro odayaasha qaarkood odayaal oo loo xiray waaye markay ka dhiidhiyeen xadgudubkii lagu hayay suuqa bakaaraha ummaddan waa ummaddii oo isku haysay midnimada ummadda soomaaliyeed mar waxay nooga baahan yihiin in arrintaas looga abaalgudo looguna istaago duqa muqdisho oo dhalinyaro oo firfircoon hadda way idiin joogaan waxaan rajaynayaa markaan in la qaaday dariiqii saxda ahaa mudane ra-iisul wasaare shacabka iyagana haddaan idhaahdo xasan cali khayre waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda runtii waa shaksi aqoon-yahana ka soo shaqeeyay hay-ado caalami ah runtiina la yimid isbeddel waxaa la rabanaa dadka uu ka rabo isbeddelka inay ku taageeraan waa idinka isla xisaabtanka wasiiradiisa la xisaabtamay waa midka dhab ah wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha ay damacsan yihiin waddankan isbeddel ka dhacana dhab bay ka tahay dadkii ku taageeri lahaa horta waa idinka waxaan rabnaa wax kasto isbeddel marka la sameynaya xanuun baa jira xanuunka dadka u dulqaadan lahaa ku samri lahaa la garab geli lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana waa idinka waxaan rajaynaynaa dowladnimada dhalatay oo socoto runtii ka dhab bay ka tahay ra-iisul wasaaruhu waktiga uu seexda aad bay u yar tahay intaasna wuxuu ku jiraa waxay tahay iyadoo la filayo inuu wasiirada ugu tiro xafiisyadooda inuu la xisaabtamo yidhahdo maxaa qabateen marka runtii dhaqankaas oo u baahan dowladnimada iyo nidaamkeeda wuxuu nooga baahan ciddii xajin laheedna waa shacabka waxaan rajaynayaa marka taasna inaad ra-iisul wasaarihiina hadda aan kusoo dhaweeyay si uu kelmadihii ku habboonaa noogu soo gaarsiiyo جماعة gobolka banaadir golaha wasiirada odayaasha dhaqanka xildhibaanada senatarada ugaasiyada qabiilada dumarka soomaaliyeed saxaafadda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo cid walba ka tegay markii ugu horeysa waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waxaan horta idinkaga mahad celinayaa xafladan quruxda badan oo soo abaabusheen waad ugu casuumteen aniga iyo golihiina wasiirada waxay ka turjumaysaa rabitaanka aad u qabtaan dowladnimada
waxay ka turjumaysaa taariikhda aad soo marteen dadka reer banaadir iyo dadkiina halkan joogaba waxaad soo aragteen dhibaatooyin badan waxaa ka mid a iyadoo ay madaafiic ka dhacayso magaalada waxaa ka mid a iyadoo magaaladani ay nuskeed xiran tahay ama ka badan waxaad soo marteen iyadoon aeroboortka laga degi karin iyadoon dekedda muqdisho la tegi karin waxaad soo marteen iyadoo adduunyada idiin haysato magaaladana inay tahay magaalo bahala galaan waxaad soo marteen ood markhaati ka noqoteen dhiigga aad u fara badan waxaad soo marteen iyadoo shaqo la-aan badan ay jirto welina way jirtaa laakiin waxaad soo marteen iyadoon la hubin qofka gurigiisa ka baxa inuu nabad ku soo noqonayo waa garanayaa xanuunka ay markaa leeyahay isbeddelku inaad ilaashataan dowladnimadiina aad ayay muhiim u tahay waana dareensanahay ugu horreyntii waa ka mahad celinaynaa horta waxgaradka iyo taageeradaas ku dhisan waxgaradka marka labaad waxaan rabaa inaan idiin iftiimiyo kow isbeddel walba oo dhaca waa xanuun xataa haddii uu yahay isbeddel ka turjumaya wanaag iyo mustaqbal fiican maadaama aanu ogeyn qofku isbeddelku waxa uu keeni karo wuxuu ka qabaa welwel wuxuu ka qabaa cabsi wuxuu ka doorbidayaa inuu ku jiro xaaladii hore oo uu ku jiro maadaama aan la ogeyn waxa imaan doona qof waliba waxaa u wanaagsan inuu iska joogo meesha uu joogo laakiin su-aashaan isweydiinayna waxay tahay meesha aan joogno ma ku qanacsannahay ma ku qanacsannahay in dhashiikayaal lagu wato magaalada xamar ma ku qanacsannahay jidadkeenu inay nus xiran yihiin weli ma ku qanacsannahay boqolkiiba 70 oo ay shacabka Soomaaliyeed dhalinyaro yihiin inay baagamudo yihiin ma ku qanacsannahay jaamacadaheena iyo iskuuladeenu inay ka tayafan yihiin kuwa dalalka dariskeena haddii aanan ku qanacsanayn waxaan iska idinka codsanayaa sida soo socota waan isku daynay sidii hore halkana waan dhaafwey haddii aan marka geesinimo yar muujin oo aqbalno in aan isbeddel sameyno fursadda aan dalkan ku gaarsiin karno meel ka wanaagsan meesha hadda uu joogo ayaa ka weyn inaan dib u noqono sidaas daraaddeed horta waxaan codsanayaa inaan sidii haddaba halkan aada noo weydiinaysay su-aalaha adag inaad noo weydiisaan waa run ma aqbalayno dhashiikayaal in lagu wato magaalada muqdisho waxaan idiin sheegayaa go-aanka ay soo saareen golaha wasiirada oo ay ku jirtay inaan qofna wada karin in ka badan 4 aake iyo 2 baabuur in shaqadiisii maanta ay bilaabatay lana bilaabay qoryo waaweyn in laga aruuriyo magaalada si marka hawshaas iyada ahi ay u socoto waxaan idinka codsanayaa inaad adkaysataan waxay nagala shaqaysaan isbeddelka dowladnimo oo muuqda isbeddelka dowladnimo oo muuqda waxaa daliil u ah kow waxaan anigu ra-iisul wasaare noqday iyadoo waddankan ay ka jirta abaar aada u baahsan welina way ka jirtaa laakiin waxaan ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan una soo gurmadaan dadkooda su-aashii aan weydiinay shacabka Soomaaliyeed oo ahaa ma noo soo gurman kartaa way nooga soo jawaabeen taageerada shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay noo fidiyaan maalintaa iyada laga bilaabo waxay kor dhaafaysaa 5 milyan oo dollar in 5 milyan oo dollar ay aruuriyaan shacabka Soomaaliyeed oo $100 $200 $50 $80 ah oo la isu keenay ay tusaale ka tahay in la gaari karo dowladnimada haddii la isku qabo waxyaalo maysan
bilaabanaya ramadaankii weli abaartii waa jirtaa inkastoo aan ilaahay ku shukrinayno roobka noo da-ay waxaan idinka iyo qof walboo soomaaliyeed oo dadkayga maqlaaya ka codsanaya wax yar ayaa noo dhiman abaartaasi inaanay macluul lagu gaarin fadlan aan u gurmano dadka soomaaliyeed oo abaarta ku jirta fadlan aan u gurmano dadka soomaaliyeed oo dhimanaya sidaas daraaddeed qof walboo idinka mida iyo dadkay maqlaaya oo dhegaysanaya hadalkayga waxaan ka codsanayaa fadlan inaadan joojina taageerada aad bixinayseen dowladnimadu inay muuqato waxaa daliil u ah dowladnimadu inay muuqato xukuumaddaydu ma dhama 3 bilood qof walba oo dowladda u shaqeeya laga soo bilaabo bisha Janaayo ama mushaarkiisu waa u yimid ama waa u soo socda macnaheedu waxay tahay Janaayo iyo Abriil inta u dhaxaysa qof walba oo dowladda u shaqeeya mushaarka waxa uu lahaa dowladda uu ka helay kii aan ka helina waa loo soo diray weli baan soo gaaray macnaheedu waxay tahay haddii amaanada aad noo dhiibteen aan ku fara adeegno haddii aan isla xisaabtano waxay ka turjumaysaa in qof walba xuquuq dowladda kula wasiin karo dowladnimadu inay muuqato waxaa caddaynaya in dhaqaalihii dowladda uu kor u kacay in maalka aan wax weyn ka helin in keliya aan dhaqaalaysanay wixna soo geli jiray isku daynay meelihii ay ku bixi jireen inaan yarayno qaladka ah haddii aad rabtaan in qoryaha magaalada laga qaado jidadka xiran la furo kuwa dunsan la dhiso isbitaallo aan yeelano inaan danta gaarka ah aan ka hormarino danta guud dowladnimada inay muuqato waxaa kamid ah dadka shacabka Soomaaliyeed waxay ogolaadeen inay la dagaalamaan musuqmaasuq inay warqado noo soo diraan ay yiraahdaan ma aqbalayno ra'iisul wasaare xoolaheena in lagu tunto waxay bilaabeen inay halkan ka istaagaan shacabka Soomaaliyeed sidii ninka odaga halkan istaagay oo yiri waxaan rabnaa inaan la xisaabtano waa yeelaynaa waa aqbalaynaa waxaan idin samaynaynaa qaab aad uga xisaabtantaan ama aan idin soo hor istaagno aad su'aalana weydiisaan ama su'aalihiina aad noo soo dirtaan waxaan ka shaqaynaynaa laakiin inaad heshaan dariiq aad uga xisaabtantaan waa run isbaarooyin inay yaaliin magaalada waa bilownay maanta jidka afgooyi laga soo bilaabay ilaa xamar yaraan waxaan xirnay 9 qofood oo ku labisnaa ciidanka militariga Soomaaliya waxay u xiran yihiin iyagoo laaluus isbaarooyin ka qaadanaya suuqa bakaaraha waxaa laga qaadanayaa canshuur aanay soo idmin dowladda Soomaaliya in la qaato waa loo soo xiray dad kamid ah kow ma joogo laakiin waayo amniga magaalada marka la sugo ayaan ogaanaynaa meel walba u tegi karo mana la sugi karo amniga haddaan idinku loo shaqeyno gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaan ku amray isbaaradii hadda aad sheegayseen inuu soo eego isagu jidadka xiran oo magaalada ku yaal uu eego sababtoo ah haddii aan aqbalno annagoo shacabkii magaalada Muqdisho in jidadkeena isu xiran yihiin waxaan diidnay dowladnimada waa inaan markaa ka shaqeynaa sida ugu fudud waan isku dayi karno in jidadka loo furo jidad si loo furo waa in nabadgelyo la helo nabadgelyo si loo helo waa in dhaqaalo la helo dhaqaale si loo helo waa in lala dagaalamo musuqmaasuqa si intaasoo dhan loo qabto idinkoo ay dowladda garab istaagtaan dowladnimadu inay muuqato waxaa daliil u ah golaha wasiirada qaarkood wasaaraduhu waxay bilaabeen in wasaaraduhu ay iskaa wax u qabsatay ugu dhisaan wasaaradaha in qof wasiiraya uu ku dhiirado oo uu yiraahdo aniga iyo shaqaalahaygu waxaan dib u dhis ku samaynaynaa wasaaradda ay saasna kusoo wargeliyaan waa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaadi jiray waxay ka turjumaysaa isbeddelka dabaysha oo socota haddii isbeddelkaasi uu dhaco marka
haddii aad ganacsado tahay oo xoolo haysatay xoolahaadu wuu ku badanayo haddii aad tahay qof shaqaale ah mushaarkaadu wuu kordhayo haddaad tahay mid lacag haystay waxaad fursad u helaysaa isbitaallo iskuul in laga sameeyo wanaagsan oo ciyaalkaada ay ku aadaan haddii aad wax walba haysato magaalada muqdisho laakiin aad ku khasban tahay in heshiika aad isku waardiyeyso ilaahay baa idinku dhaarshay waa nolol noocee su-aasha aan isweydiinayno waxay tahay marka sidii horaan rabnaa inaan ku jirno mise waxaan rabnaa inaan isku dayno inaan si wanaagsan raadino haddaanan rabin inaan sidii hore markaa noloshii aad ku jirno soo maaha inaan isbeddelka aqbalno isbeddelka macnihiisu ma aha inuu xaq lahaa xaqi ka qaato iyadoo isbeddel la samaynayo waa in la cadaalad faro ciidamadii booliska iyo militariga iyo nabad sugidda isugu jira oo habeen hore iyo maanta sugaayay amniga magaalada muqdisho anaa u tegay inta aanay bilaabin shaqada waxaan ka codsaday inay ogaadaan guryaha ay gelayaan inay yihiin guryo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed waxaan ka codsaday haddii ay rabaan dawladdu inay guuleysato waxay ku xiran tahay iyagu siday ula dhaqmaan dadka ay la kulmaan waxaan ka codsaday inay ogaadaan cadaaladdu inay iyaga ka bilaabato kuwa aan berri u tegi doono haddii ilaahay yidhaahdo iyagana aan ku aruurinay balidoogya waan raba inaan ugu tago inaan sidaas ugu sheego waan idhaahdo haddaad rabtaan xamar inay nabad noqoto waa inaan shabaabka xamar banaankeeda kula dagaalamo waa inaan toora u tagno laakiin dawladda aada maqashaan waa shacabka dawladdu waa idinka macnaheedu waxay tahay idinku haddaadan ogoleynina isbeddel in la sameeyo isbeddel dhici maayo dadka dhalinyarada iyo gabdhaha halkan jooga gaar ahaan waxaan leeyahay aniga iyo inta da-dayda ah waxaad xaq ugu lahaadaan inay gacanta idiin geliyaan Soomaaliya ka duwan tan hadda aan joogno waan kusoo saaxiibay waa inaad nala xisaabtantaan ood na weydiisaan su-aalo adag oo aad tirahdaan aaway Soomaaliyadii aan xaq u lahayd ma la gaarayo Soomaaliyadii aad xaq u lahaydeen haddii aadan dadka annagoo kale la xisaabtamin waa inaad isweydiisaan su-aal dalka laydinkaga tegaayo dal noocee hawda isbitaallo ma leeyahay iskuulle ma leeyahay jidad ma leeyahay haddii ay jawaabtu maya tahay la xisaabtama wasiiradadiina waaweyn oo dawladda ku jira wasaaraha madaxweynaha la xisaabtama kaaba qabiiladiina la xisaabtama senatarada iyo xildhibaanada la xisaabtama weydiiya aawa Soomaaliyadii aan xaqeeda kugu lahayn dawladnimada inay muuqato waxaa idin caddaynaya isla xisaabtanku ma khuseeya dadka Soomaaliyeed oo keliya adduunyadana waxaan bilownay inaan la xisaabtano waxaan weydiinay su-aalaha aaway caddayntii wixii aada Soomaaliya u qabanayseen haddii aada Soomaaliya wax u qabataan waxaan rabnaa inaad na tusisaan waxaan rabnaa jidad dhisan inaan aragno waddooyin inaan aragno biyo xireen meel laga dhisaan aragno shaqo la abuuray inaan aragno sababtoo ah 70% shacabka Soomaaliyeed hadday yihiin dhalinyaro rajada Soomaaliyeed waxay tahay dadkaas inay najaxaan khatarta ummadda Soomaaliyeedna waxa ay tahay haddii dadkaas aan iskuul u heli weyn ama jaamacad u heli weyn ama shaqo heli weyn adduunyada marka waxaan bilownay inaan idhaahdo na garab istaaga waana ku mahadsantihiin sida aada noo caawinaysaan laakiin talada nala ku caawinaya annagaa yeelanaya dawladdu marka adduunyada lama xisaabtami karto haddaanay shacabkeeda haysan haddii dawladda farqaha looga degan yahay dunida lama xisaabtami karto waayo farqaha kuwa u dheganay la hadlaysa haddaad rabtaan marka adduunyada inaan la xisaabtano waa inaad ogaataan saldhigii iyo xasaanadii adduunyada lagula xisaabtami lahay waayo idinku inaad dawladdiina taageertaan dawlad shacabkeedii aanu taageerin miyay adduunyada taageeri kartaa
xalka dunida banaankeeda ka raadin waxaa kaloo idin sheegayaa mar walba waxaan idhahdaa adduunyadu nama kaalmayso doodaydu anigu waxa ay tahay waa inaan annagu iskaalmaynaa marka doodaydu waxay tahay annagu haddaan dadaalno ayay dunidu noo imaanaysa doodaydu waxay tahay haddaan annagu is-ixtiraamnay adduunyadu ixtiraamaysa doodaydu waxay tahay wiilasha shabaabka oo nala dagaalamayo adduunyadu ma garanayaan annagaa garanay annagu waa inaan ka shaqeynaa marka nabadgelyada aynkaas dowladnimadu inay muuqato waxaa u daliil ah lafdhabarka ama laf adayga dumarka Soomaaliya waxay tiri gabadha halkan taagneed waxaan ka qayb galay 11 xafladood oo lagu taageerayo dowladnimada macnaheedu ma aha inay xasan khayre jecesha ma aha inay farmaajo jecesha waxay rabtaa dowladnimo jacaylka dowladnimada u qabto ayaa taas dowladnimadu inay muuqato waxaa dowladnimadu inay muuqato waxaa daliil u ah 3,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaan maalin u tagay soo salaamay iyagoo ifreenay siday igu soo ordeen mid gacanta iga dhiga mid shaatiga iga jiida mid hortayda soo istaaga weligood may arag aniga ma yaqaanin magacayga waxaa laga yaabaa inaanay garanayn cidda igu soo ordaayeen ma ahan aniga cidda igu soo ordaayeen waxa ay tahay jacaylka ay u qabaan dowladnimo Soomaalida cidda igu soo ordaayeen waxa ay tahay rajada ay ka qabaan dalkooda sidaas daraaddeed waxaa marka ugu horeysa sidaan hore u sheegay ka mahad celinayaa taageerada aad dowladdiina taageersantihiin waxaan kula dardaarmayaa laakiin shaqo badan ayaa dhiman shaqada dhiman waxay tahay inaan kala dooranno shalay iyo maanta inaan kala dooranno maanta iyo berri inaan isweydiino si aan u jarno masaafada aan rabno inaan jarno aan u galno nolol ka wanaagsan tan maxaan ogolnahay inaan bixino inaan isweydiino su-aalo ah sida madaxdii hore dunidu ay sheegi jirtay anigu maxaan dalkaygu ku tari karaa ma ahan dalkaygu muxuu ugu tari karaa anigu maxaan dalkaygu ku tari karaa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa naga go-an dalkan inuu isbeddel galo in dadka Soomaaliyeed oo baaga muddada ay shaqo helaan in kuwa isbitaalka raba ay caafimaad helaan in kuwa nabadgelyada ay nabadgelyo helaan in kuwa ganacsatada ah xuquuqdooda la dhowro laakiin canshuurta ay bixiyaan in dadka Soomaaliyeed ay isku xaquuq yihiin in ummadda Soomaaliyeed ay isu timaado in lagu dadaalo sidii lagu gaari lahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan ku codsanaynaa inaad nala shaqaysaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum سلامتك رئيس وزراء وسلام يوم العشاء كذب رئيس وزراء فحايا النقاط هل توجيه وضعها وفر الناس كعيين من أحد القنوات كذب وزراء وسلام النقاط هي اليوم وقدروا يستدعون من كل الفقر وقدروا يستدعون من Thank you.
Thank you.